waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaanu idin soo gudbinaynaa madaxweynaha Puntland oo soo saaray amar culus oo ka dhan ah dadka ajaanibta ee markaasi ku sugan deegaanada Puntland waxa uu yahay amarkaas ayaan idin soo gudbin doonaa isagoona markaasi sidoo kale fariin adag u diray kooxda Daesh ee ku sugan qaybo kamid ah buuraleyda Almiskaada sidoo kale waxaanu idin soo gudbin doonaa madaxtooyada Soomaaliya oo markaasi ku mashquulsan kala dilida xildhibaanada golaha shacabka xilli fila Soomaaliya looga yeeray tiro xildhibaanaha kuwaas oo la tuhunsan yahay in la doonayo in markaasi lagu carqaladeeyo kalfadhiga golaha shacabka ee markaasi la damacsan yahay in mooshin laga gudbiyo xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre sidoo kale waxaanu idin soo gudbinaynaa waxa ka jira in markaasi safar laga horjoogsaday Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaasoo la xaqiijiyay in markaasi laga joojiyay safar uu uga ambabixi lahaa dalka haddaba waxaan markaasi idin soo gudbin doonaa run ahaanshaha warkaasi iyo sidoo kale qaabka markaasi looga hor istaagay sidoo kale taliyihii hore hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo markaasi la saftay Ra'iisul Wasaaraha hore Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble markaasina si adag u difaacay weerarna markaasi afka ku qaaday fila Soomaaliya ayaan markaasi idin soo gudbin doonaa inta gudaha galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkan like saarta si dad badan uu gaaro Puntland waxa ay soo saartay amar culus oo ka dhan ah dadka ajaanibta ee ku sugan deegaanadeeda waxaana haatan socda wajigii labaad ee markaasi tarxiilka dadka ajaanibta kuwaas oo u badan Ethiopian gaar ahaan qowmiyadda Oromada waxaana qaybo badan oo kamid ah Puntland ka soconaya raafka dadka markaasi ajaanibta ah ee sida sharci darrada ee ku jooga deegaanada Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa amar madaxweyne ku soo saaray in la joojiyo ajaanibta sharci la'aanta ee ku soo galaysa deegaanada Puntland waxaana la faray dhammaan hay'adaha dawladda ee ay khusayso in markaasi ay ka howlgalaan waxa markaasi warqad ka soo baxday ama lagu daabacay bogga markaasi madaxtooyada Puntland ayaa waxa u qornay sida tan ku socota wasaaradda amniga iyo DDR-ta dawladda Puntland ku socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland ku socota wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland ku socota wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dawladda Puntland og hay'adda markaasi socdaalka ujeedo ayaa la yiri joojin ajaanibta deegaanada Puntland soo galaysa waxa dhammaan hay'adaha ay warqadani ku socota lagu wargelinayaa in markaasi la joojiyay laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha 2025 oo shalay ah ajaanibta aan haysan sharciga dalku galka in aysan markaasi soo gali karin ayaa la yiri gudaha deegaanada Puntland hadaba waxa la farayaa in aad markaasi gudataan waajibaadka idinkaga aadan ayaa warqadda markaasi lagu soo gunaanaday amarkan ka soo baxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa markaasi la filayaa in uu dhaqan gali doono isla markaana ay sii socon doonto tarxiilka dadka ajaanibta halka amarkanna uu markaasi ka hortagayo ama looga hortagayo in ajaanib cusub ay markaasi soo galaan gudaha deegaanada Puntland waxaana haatan howlgallo markaasi lagu soo qabanayo dadka ajaanibta oo ka socda magaalooyinka waaweyn ee markaasi Puntland xilli dadka shacabka qodooda ay qayb ka yihiin tarxiilka dadka ajaanibta iyagoo markaasi ilaamaha ammaanka la wadaagaya cid kasta oo markaasi ay u arkaan in ay ajaanib markaasi tahay oo aysan u dhalan guud ahaan markaasi deegaanada Puntland ama si guudba Soomaali uusan ahayn waxa ay markaasi ku wargelinayaan ilaamaha ammaanka in markaasi ay u yimaadaan isla markaana ay ku wareejiyaan Puntland waxa ay dagaal adag kula jirtaa kooxda Daesh ee ka dagaalamaysa buuraleyda Almiskaada waxaana markaasi u badan xubnahaasi markaasi ajaanib ka soo kala jeedo wadamo kala duwan waana sababta keentay in Puntland ay ka shakiso dhammaan dadka ajaanibta ah ee sharci darrada ku jooga deegaanadeeda waxaana raafkan uu bilowday tan iyo markii ciidanka markaasi difaaca Puntland weerar ay ku soo qaadeen xerada markaasi Dharjaalle
kooxda Daesh kaas oo wixii ka dambeeyay Puntland ay bilowday in ay markaasi ugaarsato dadka ajaanibta oo ay ka saarto deegaanadeeda waxaana ay ku micneeyeen in dadka markaasi ilaa haatan dagaalka kaga dhintay kooxda Daesh inay u badnaayeen ama ay ahaayeen dad ajaaniba waxaana ay sheegeen in dadkan hadda ku sugan deegaanada Puntland markaasi ajaanibta in iyagana ay ku biiri karaan kooxaha markaasi ka dagaalamaya Buuraleyda Calmiskaada dhanka kale waxaa jira warar markaasi isa soo taraya oo sheegaya in Villa Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay sidii ay uga hortagi lahayd mooshin la sheegay in ay soo abaabuleen xildhibaano markaasi ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana wararkan helena ay markaasi sheegayaan in madaxtooyada ay u yeedhay tiro xildhibaano ah oo ay markaasi doonayso in ay ku carqaladeyso mooshinka markaasi la tuhunsan yahay in laga soo gudbinayo xukuumadda madaxtooyada waxay u yeedhay xildhibaanada qaar kadib guuxa iyo sidoo kale mooshin ka dhan ah xukuumadda sida markaasi uu tilmaamay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waqtiga iyo waayuhu cajiibsana 3 sano ayaa xildhibaanada la micno dilayay oo marka ay markaasi danka gasho madaxtooyada lagu jeesjeesay caawana waxa ay taagan tahay doona xildhibaanada iyo xildhibaan hebel soo qanciya waxba yaan xildhibaanada waqtiga laga lumin tani socotay ayuu markaasi yiri xildhibaan Mawlid Waayeel oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka waxaana hadalkiisa uu u muuqday mid markaasi Villa Soomaaliya haatan aanan loo baahnayn oo waqtigii loo baahnaa albaabada markaasi ay soo xirteen waxaana uu xusay oo si cad markaasi u cadeeyay in xildhibaanada qaar markaasi la soo waciyay kuwa qaar koodna markaasi xildhibaano kale loo diray si markaasi loogu soo qanciyo in ay wax ka bedelaan fikirka markaasi ay aaminsan yihiin si guud magaalada Muqdisho waxa ka jira guux aad u weyn oo la xiriira arimaha markaasi doorashooyinka oo waqti yar oo markaasi ka haray waxaana xubnaha mucaaradka ay dalbanayaan in doorashada dhaxda la soo dhigo isla markaana Villa Soomaaliya ay joojiso caburinta ay markaasi ku hayso iyo cagajugleynta siyaasiyiinta ka aragtida duwan sidoo kalena xildhibaanada golaha shacabka ayaa maalinta Sabtida ah oo maalin kaliya ay naga xigto dib markaasi ugu fariisan doono kalfadhiga baarlamaanka kaas oo markaasi la filayo in uu noqon doono mid xiiso gaar ah xambaarsan dhanka kale warar ayaa markaasi isa soo taraya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble laga hor istaagay safar uu dalka uga ambabixi lahaa ilo waraadyo ku dhow xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xaqiijiyay in laga hor istaagay safar uu rabay in uu ku tago wadanka Koonfur Afrika Rooble ayaa la sheegay in uu rabay in uu markaasi ku safro baasaboor markaasi xasaanad leh oo markaasi diblomaasi ah balse laga hor istaagay habraaca uu markaasi ku bixi lahaa sidaas ayaa markaasi loogu diiday Rooble ayaa laga hor joogsaday sida wararka ay sheegayaan warqad ogolaansho si baasaboorkii diblomaasiga uu baasaboorkiisa markaasi diblomaasiga uu ugu tago dalka Koonfur Afrika kadib markii uu casuumaad uu ka helay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ilo waraajada waxa markaasi ay sheegayaan in mudane Rooble oo safarkan ay ku weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo wasiirro hore isla markaana go'aanka loogu diiday warqadda ogolaanshaha ay ka timid madaxda ugu sarreysa ee dalka waxa lagu wadaa Rooble in uu u ambabaxo dalka Koonfur Afrika maanta isagoo isticmaalaya baasaboorkiisa markaasi Sweden lama oga ilaa hadda sababta dhabta ah markaasi go'aankan iyadoo ay xusid mudan tahay in Rooble uu ahaa shaqsigii ka shaqeeyay in madaxda haatan talada haysa ay ku yimaadaan doorashada oo qabashadeedu markaasi uu dhaxda u xirtay xilli uu dalka ku jiray xaalad aad u adag ra'iisul Rooble ayaa dhawaan waxa uu kulan gurigiisa kula qaatay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan kaasoo ay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay doorasho raali laga wada yahay oo ku timaado hanaan markaasi loo wada dhan yahay dhanka kale bartiisa Facebook ayuu ku soo qoray xogta kulanka kaas oo loo arkay in uu markaasi diidan yahay sida ay wax u socdaan madaxda ugu sarreysa dalka waxa markaasi la aaminsan yahay in markaasi ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Rooble ay ku tuhmayaan in uu markaasi xulafo u leeyahay xubnaha mucaaradka ugu weyn yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee ku sugan magaalada Muqdisho waana arinta markaasi la tuhunsan yahay in ay ka dambeyso joojinta safarkiisa markaasi uu ku tagi lahaa wadanka Koonfur Afrika